يهودي مدح نوما صار هلك إلهي دقي بيالا قال له مدح نوما صار هلك إلهي دقي بيالا maalmahan dambe 26 December wixii ka dambeeyay dad baa waxyaabo ilaahay gaf ku ah oo diinta gaf ku ah oo dalkan sumcadiisa iyo sharaftiisa iyo dadkiisaba meel ka dhac ku ah warbaahinta kaga hadlaya waxaan maqlay oo darrada ma tii ka horeysay laga sii daayay warbaahinta ragooda yaalo hadlaya kuwa kale meelo kale ka hadlayo madax dhaqameedina waa jireen marahooda kuwa sidaas oo kale u hadlay waa jireen munkarka culimada hore uga hadleen kan bisha Ramadaan dhexdeeda soo cusboonaaday baan kelmad yar ka oranaya ereyada ay lahaayeen waxa kamida yuhuud waa walaalahayo yuhuudanu ka jecel lahay dadka muslimiinta ah yuhuudu madaxayeen oo saarayeen waxaanay ka hadlayeen ictiraafka in la ilaaliyo oo qofka ka hor yimaada la xidho ictiraafna waa ilaalinayaan ilaahayna waa ku gafayaan ilaahay diintiisii bay meel ka dhac ku sameynayaan walaalaheen waa muuminiinta ilaahay bari innamal mu'minuuna ikhwa yuhuudi walaala inooma aha bal ilaahay wuxuu inoo sheegay inay cadow inoo yihiin latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuuda والذين أشركوا وحال وقان دونتا هيلي دونتا مؤمنين تددك عداوة أبضانو هيا إنيه يهود هي مشركين نصارى هي كريستان كأيابا كسوكية مشركين سنمدى عابدة سيكون بوديسكا تشينا إيو تشبان إيو ميراك الله بدنا الدنيا ذا كم إذا كنول iyo yuhuudu kuwa u cadaawad daran weeyaan buu ilaahay ilaahayna wuxuu yiri cadawgiina ha ka yeelanina awliya xigto iyo kuwa aad leedin waanu jecelahay waad soo dhawaysanaysaan yaa ayuha alladina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum awliya hada kalaamu rabbi alcaalamiin muuminiinta cadawgayga iyo cadawgiina ha ka dhiganina xigto kuwa qulubtaad ka jeceshiin معاملات بيود دحمري كرتاقال يهودي أما نصراني أما مشرك سلام عابده نبي محمد عليه الصلاة والسلام دحمري جلت وحبات كلا يبسن كرتان وحبات كلا أماهن كرتان هالشيس بات قالي كرتان لكن هالشيس كوائن والدين توافقه وشرط إيه هالشيس كستو الدين تخلاف سنوا باطل رسولك عليه الصلاة والسلام وحد أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل هالشيء كستا أو إلهي الحكم كيسا خلاف سنوه وحبا كما تيران كاسا لغو ميزانيا شي سيدتكو أي قليان نوعي دونيان بها النقضاني وحي إلهي الحكم كيسا كوري ما داواه وحبا كما تيران وهذا الكنية محمد عليه الصلاة والسلام مسلمين تيا قالوا شي سيدا أي قليان وحلوه يا المصلحة والمفسدة محادثك مسلمين تا دين تودا دل كودا نف تودا أخلاق تودا مستقبل كودا حا مصلحة وكتيرة حا مفسدة كتيرة لبضة تيبا بدل تاسيا لو يجي لكن لقى واحد مودا درتشير فربضنين وكتيرة درتشير فربضن بكتيرة تدك حتى يقول دين تاقون الله هين أي مسائل الدنيا ذا كومك كافتو بيان وكومك قاب صنيان حتى إلى يراهدان معاملات الدنيا عندنا نحمر يسكومك قاب صنيان الرمى الدين تي تابلي يفرح للقليل آيات عرضوا إلهي كتاب كيسا كويا لا أي خلافية مركاسي دنبابية مركاسي دولة دي مقع يسمع عدك الدليا مركاسي دادكي شرف دليا مركاسي دادك لو إيقونا خلطاني دال كاردن إيا دادكي سباي كعاية ريب لو حاسو حيكو الليان ريب الساسي أميسيين دادك دال كادقاني وحاسي أميسيين بورانيا كواسي لو خلدين إلهي بدو ولا تزر وازرة وزر أخرى قف نقف دنبقي سماحا باركا ضل هي ضدا قف أما الضد خلدمي لقما عايكرا تاسيدا بالدنب وينه رسولك عليه الصلاة والسلام يقول إن من أفرى الفرى أن يقدح الشاعر في القبيلة بأسرها وحاكم إذا بين أبوك يدن بيده وهوين منك قبيا قبيلة دان والنوع والبله إنه قبيك كعايو ضل دان ودد مدقيهين قفك هذا الوقف يري
ugu abtirinaya ku xukumsiinaya ku caaya isaguna u khalday laakiin arintaa waxay noo soo jiidaya dadka waxa ku hadlaya nooca ku hadlaya kuwa odhanaya qofka yuhuud soo hadal qaade wax ka sheega halkaa laga toogto ayna hada fi kitaab illah wa fi sunnati rasuulillah kitaabka quraanka meenu ka masaxnaa aayaadkan yuhuudda ku sheegaya maqduubun calayhim nasaarana daaliina ku sheegaya cadowga muslimiinta ku sheegaya war kala danaysiga adduunyo iyo in quluubtu isu furanto oo la isjeclaado raali la iska noqdo oo la is ammaano oo wixii ilaahay uu ku sheegay xataa la yidhaahdo yaa lagu sheegin war labada dadow ha la kala saaro hadal iyo ficil iyo go'aamo ilaahay diintiisa khilaafsanna weligan horumar ku gaari mayno bal dubaha ilaahay baa inagu dhacayo halkaynu joognayn hoos uga noqonayna war ilaahay diintiisa aynu ilaalin intaynu dal ilaalinayno in ka weyn intaynu dowladnimo ilaalinayno in ka weyn inta ictiraaf la ilaalinayo in ka weyn ilaahay diintiisa aynu ilaalin waayo wax walba hagaagiisu iyada ayuu ku xidhay haddaad ka cabanaysa xaalad adag oo leedahay xaaladda inay ka baxaan doonaya ilaahay caasiya qowl iyo ficil toona ku caasiya waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqu min xaysu laa yaxtasib miyaanaad maqal qofka ilaahay ka baqa xaalad kastoo adag ilaahay meel uga baxo u yeelaya ilaahay baa arsaaqada uga keenaya noocay tahayba meel aanu ka filanayn mafhuumka ayaddu waa maxay qofka ilaahay caasiya xuquuqdiisa dayaca ilaahay xaaladda uu ku adkaynaya waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka qofka ilaahay diintiisa ka jeesta ku camal fali waayo ay xidhi weydo nolol adag inuu galayo ayuu ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inoogu sheegay wajucila adullu wasagaaru calaa man khaalafa amri bnu nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam dulliga iyo hooseynta dusha waxaa loo saaray cidda amarkayga khilaaftay war cidda wax ka iibsanaysa ka iibso ciddaad la mucaamaloonayso si shareecada waafaqsan ula mucaamalood laakiin ilaahay diintiisa ha ku ciyaari ilaahay aayaadkiisa cadcad ha khilaafin ilaahay subxaana wa tacaala ha caasiin arrintaa halaag bay sababu noqonaysaa halaag bay sababu noqonaysaa horumar daaya ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa arrinta noocaas sababu noqonaysa ittaqu llah ya cibaad allah yuhuudi madaxa nooma saarre halka ilaahay dhigay bay yaallaan gaallo madaxay nooma saarre halka ilaahay u dhigay buu yaallaa mana jeclin waa la mucaamaloon karnaa xuquuqda ilaahay intuu siiyeyna waynu siinaynaa oo diinteennu say tiri ula dhaqma baynu ula dhaqmaynaa laakiin ma odhan waanu jecelnay muslim iyo gaalla si kasta oo muslim uu kuu dulmiyo oo uu kuu dhibo kuuma banaano inaad tiraa muslimkaa iyo gaalkan jecelay afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiina maa lakum kayfa taxkumuun ilaahay baan simin subxaana wa tacaala si kastoo muslimku u khaldan yahay gaal la mid maaha gaal baa ka wanaagsan iyo gaal baan ka jecelayn lama odhan karo gaal akhlaaq dulmigii iyo akhlaaq xumadii u darayd buu ku sifaysay oo ah kufr iyo shirki muslimna wuxuu ku sifaysan yahay akhlaaq wanaagga qodobkii u sarreeyey oo ah iimaan iyo tawxiid oo ay dhici karto sida ilaahay kitaabkiisa ku sheegay khaladaadka kale ee ka dhaca haddaanu xataa ka toobadkeenin qiyaamaha marka la tago ilaahay inuu ugu dhaafo tawxiidka iyo iimaanka ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa war diinta ha la ilaaliyo qofka wax khaldan ku hadlayana waajib baa inaga saareen wanaagga ha la faro xumaantana ha laga reebo dalkeenna aynu ilaashanno nabadgelyadiisa aynu ilaalinno horumarkiisa aynu u midowno aynu ka shaqayno inagoo mar walba u marayna wadada ilaahay subxaana wa tacaala uu inoo ogol yahay ee waddo khaldan aanu marahayn waana siduu inoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo rasuulkeennu wuxuu yihi ina ruuxa alqudus nafatha fii rawcii annahu laa tamuutu nafsun xatى تstakmila risqaha waajalaha faاtaquu اllaha waajmiluu fi اطalb malaku jibriil wuxuu waxyi iigu keenay nafna inaanay dhimanahayn nafuhuna waa la mid dal dhan degan ilaa ay dhammaystaan ajashooda cumrigii ilahay ugu talagalay adduunyada inay joogaan iyo risqigooda noocuu yahay cilmigaa risqiya caafimaadkaa risqiya xoolahaa risqiya horumarka dalkaa risqiya arrinku mar hadduu sidaa yahay aad tahay qof rumaysan alqada walqadar waajibkaagu waa maxay fattaquu llaha waajmiluu fi alab war ilaahay ka baqa oo raadinta risqiga noocuu yahayba waddo fiican u mara alab alxalaali wa tarka alxaraam buuri nabigu alayh salatu salaam
xalaasha raadsada wadadeeda mara xaaraantana iska ilaaliya qofka munkar ku hadlaya iyo waxun dan inoomaha diinteenna dalkeenna dowladnimadeenna horumarkeenna bal qofkaasaa dhab ahaan ah qofka dib inoo celinaya ee masaalixdii iyo danaheenna diineed iyo kuwa adduunya intaba la dagaalamaya ee dulli iyo hoosayn abaaro dib u dhac faqri sabab inoogu noqonaya iyo inaan taageerin oo garab istaaga inaan u muujinin ilaahay ka baqaynu dhaano maskaxdaada ka saar wax ilaahay ka cadhaysiinaya inuu dalkaaga wuxu taraya ama dadkaaga wuxu taraya ama adiga wuxuu ku taraya ka saar maskaxdaada taasi waxay dawo ka noqon qof ilaahay ka cadhaysiinaya inaad taageerto adoo leh dalkaan jecelahay ama horumarkiisa ayaan doonaya dhab ahaan dalka waxaa jecel qofka waxa wanaagsan dadka u sheegaya waxa xunna ka reebaya masaalixda iyo danaha guud iyo horumarkana ka shaqaynaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu waafajiyo